kadib markii xukuumadda Soomaaliland ku istaagtay inuu ka soo gudbo xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo sidoo kale Djibouti. Saxufiga rugcadaaga ee Cali Axmed Raabi Cali Sayo dhanka kalena ka mid ah murtidhaarida Soomaalida ayaa waxa arintaasi markii ugu horeysay telefishinka Somali Cable uu wax ka weydiiyay sababta looga hor istaagay saxufigaasi inuu soo gudbo xuduudka Soomaaliland isla markaana sida uu tilmaamay warbixin ka diyaariyo masjidka Qiblateyn. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye waxaanu yidhi Cali Sayo in reer Soomaaliland anugu waan haystaa baasaboorka Djibouti oo dadka waa loo muxuu ahaa way noo dhib yareen runtii innaga iyo Soomaali weynta kalaba uu muxuu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti dadka waa u dhib yareeyo xagga inuu haysta laga yaabo baasaboorka Djibouti waayo wuxuu noo sheegay inuu fiisa soo qaatay laakiin Cali arrintu ma Cali waxa la socday tiimka la socday waa kiim lahaa reer Soomaaliland isboo noo sheegay halkaas ku dhasheen waa ninka reer Soomaaliland waa loo guriyaa laakiin kol haduu fiisa soo qaadanayo imanayo dhul aasaar taalo oo taariikh taalo oo la leeyahay la aqoonsan yahay in mashaariic waliba la waday inay u yimaadaan oo ka soo galaan hadii uu barnaamij Saab TV muxuu ahaay u duubanayo wariyayaasha halkan jooga inay tagaan bay inuu Cali fiisa soo qaato oo isu soo kalifo oo tiim soo kaxaysa ma yahay waxaan leeyahay haddii mashaariic laga qabanayana cid ay khuseysay halkan ayaa laga xiriir fiisada waad soo qaadan kartaa laakiin waxaad qabanaysaa cid baa muxuu u xil saaran cid aan la xiriiro weey oo laga fasax qaato taas waa taa ciidanka qaranka ciidamada qaranka guud ahaanba marka la isku geeyo waxa dadkan ku hordo waa dadka nabadgelyada kuwa noo haya gaar ahaan booliisku waa dadka isku haya ee kala haya waxa weeyaan waa ciidankan u diranay inay nabadgelyada xuduudda kuwa magaalooyinka iyo miyiba noo ilaaliyaan ee dadweynaha nabadooda ilaaliyaan ay ku seexdaan ciidanka iyagu ma geeyo ay taliyaha ninka caay waa nin caay ciidankii muxuu ahaa booliska muu kale reebin sidaan aqoonsanahay taliyaha ciidanka qaranku wuxuu ku joogaa calaamadda usita waxa weeyaan tii madaxweynuhu ku xidhay waxaanu leenahay gaf buu ka galay wax loo dul qaadan karayna maaha mana aqbalayno in loo caayo ciidanka iyaga sidaa hadday ciidanka guud ahaan noqoto iyo hadday noqoto muxuu ahaa taliskiisa qofku caayi karaa isagoo shicib ah uu caayi karaa maaha muxuu ahaa dee waxbuu ka sheegan karaa waxbuu ka taban karaa waxbuu ka sheegi karaa ciidanka booliiska waa ka caagan yahay sidaan shaarkiisa loo taaban karin ayaan muxuu ahaa dhaliil toos oo dibadeed looga sheegi karin ciidankayaga waa laga soo ashtakoon karaa waa bini'aadam oo gaf way samayn karaan laakiin waa laga soo ashtakoodaa dee lagama caayo muxuu ahaa media waxaa wasiir hadiiba uu soo maray safaaradeena Djibouti oo sidoo kale uu waraaqihiisii dokumentariyadiisii u dhamaystiray isaga marka laga yimaado dadka la socdaaba maxaa ku jaban hadiiba ay booqdaan oo ay soo eegaan deegaankan warbixin ka diyaariya inay ka soo galaan aqalka daaqada in laga soo dhaamahay waa in laga soo galo ridaha rasmiga in loo yimaado dadka mas'uuliyiinta waxa loo socdo cid ka mas'uulka in loo yimaado weey waxa la wadayo waxa aasaar baa laga baaray aasaar baa la sawirayay mashaariic baa laga fulinayay cid la socota waayo ma wariyayaalba ma ganacsata ma contractors ba soo inay yimaadaan halka waxay doonayaan ka sheegtaan maaha safaaradda Djibouti ma Soomaaliland ka tirsanayna fiisada waa aqbalay ma fiisada ma aan diidin laakiin waxa sayl laga qabanayaan diidin sayl waxa laga qabanayaa saab hadii la wato saab doonaya barnaamij uu geysto inay halkan ka joogaan taga weey laakiin tii halka laga soo kaxaystay muxuu ahaa dad aanan garanay waxa u socdaan in la soo sheego waxa u socdaan wasiir waxa sidoo kale sheegay inaan waxba laga weydiin oo aan laga gurin hadalka oo taliyihii buu sheegay telefoonkii uu ku dhigay miyaa sida loo qanciyo hadii ay jirto isaafay yeynaan siyeelina uu calina uu garanaya cid la socotaana way garanay waxa u socdeen inay ciddii hawshan ka mas'uulka ahayd ay u socdaan la soo xiriiraan weey Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa.